malaa dadku tusaalahay aad wax ugu fahmay ogyihiin aan laba midho tusaale ama saddex tusaalaha tilmaamo nusuusta badanba ka tago nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo quraysh sulxu xudaybiya heshiis bay wada galeen heshiiskii oo la wado waan wali la qorin ayaa waxayse soo taageen nin muslima abu jandal nin muslima uu dhalay odayga nebiga heshiiska la gelaya calayhi salaatu wasalaam oo maka lagu toorjargareeyey oo soo baxsadoo silsiladihii ku xidhan yihin qiyaasada nin muslima oo gaal ka soo cararay oo silsiladaysan oo silsiladihii wata oo toorjarkii ka muuqdo ayaa isa soo taagay ninkii gaalka ahaa wuxuu yidhi waxaan heshiiska ugula galo kambaa ugu horreeya heshiiska waxaa ka mid ahaa qodobadiisa wixii muslime soo baxsada ee quraysh ka tagay muslimiinta u tagaa in loo celiyo wixii muslim ka soo ridoobay xagga usoo cararana inaan la soo celin wuxuu yidhi heshiiska ah wixii ugu horreeyaan kugula galaa waa kan waar wali lama qorin may heshiisba geli maayo haddaan kaa la celinin waa inankiisii karina nebigu ilaa xad u gaadhsiiyey kan iga qalleeh ii dhaaf waa diiday nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigii wuxuu ku yidhi isbir waxtasib raac hadda waa nin muslimo waayo waxaa la ilaalinaya cahdiga muslimiintu galeen isbir waxtasib baa la yidhi sabiroo iska tag waa masalada axaadiidka dheer uu ku soo arooray bukhaari ku yaala cumar iyo abubakar iyo hadalladii saxaabada ka soo baxsaday isla qisadan wax ku saabsan oo labaad aan tilmaamo wakhtigaa koobane abu jandal saxaabigii la odhan jiray haddaynu sheegnay saxaabi kala soo baxsaday oo abubasiir la yidhaahdo wuxuu ka yimi gaaladii dabeetana madiinuu yimi madiina isagoo iska fadhiyo jooga ayay gaaladii laba nin ka soo daba direen waxay dhahaen ninkaasaa soo baxsaday waa in la soo celiyaa ballankeenuna wuxuu ahaa maxay inaad celiso wixii xaggayaga ka yimaado abubasiiroo jooga buu nebigu yeedho wuxuu yidhi kaale raac nimankan nebi maxamed ma diidi karo calayhi salaatu wasalaam labadii nin buu soo raaca gaaladii baa lagu celinaya waayo heshiiskaasaa dhigayay wuu yimi dhexda markuu marayo isaga nebiga ka yimi calayhi salaatu wasalaam nimankiina u dhiib dhexda markuu marayaa nimankii la iska sheekaystay oo dabeetana seeftaadu qurux badanayo waxbuu yidho bal itus oo mid buu seefti ka qaado mid buu madaxa ka gooyey kii kalena wuu cararay isagoo kii kale eriyayo haddana madiina kusoo noqdo waxaa la yidhi abubuseer soo gala haddana oo labadii nin aad ku dartay midna dhimay midna wuu eriyayaayo waa kan wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo adigu ballankii fulisay ilaadu caadigaagu waxaa inaad celiso oo i celisay nimankan dee anaa iska soo farsameeyo ka imi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi kani waa dagaal ooge alla yaa wax u gargaara siiyey yani weedh mascaru xarb waa dagaal ooga buu nebigu yidhi wuxuu gartay haddii haddana la soo noqdo inuu nebigu celin doono markaasuu iska baxa meelaan dowladda islaamku gaadhin oo xeeba buu iska degay aan nebi maxamed xukumin markaa dee gaaladu odhan mayso soo celiyo markaa wuu iskaga tegey meel kaleu joogaa halkaas buu ayuu noqday inuu gaalada dagaal isagu keligii la galo muslimiintii wixii soo baxsadaaba madiine ma yimaadaane halkaasay tagaan dhowr boqol oo nin abujandalkii ka mid yahay baa ugu tegey akhiiran gaaladaa time waxay idhaahdeen bandigaa waanu ogolla in laga masaxaa heshiiskii nimankaa u naga qabo oo ha ku soo noqdaan madiino iyaguna heshiiskaa soo galaan inay sulxiga ku jiraan oo nabaddaa waxaan uga dan leeyahay hadduu qofka muslimkii heshiis rabo inuu buriyo ma heshiiska adag baa jira dad muslimiina oo la dhibay oo saa loo rafaadinayo kaasuu aqbali waa maslaxad iyo waa kan iyo waxaasi meesha kama socdaan heshiiskaad gasha waad gasha qiso saddexaad aan idin tilmaamo dagaalkii beder markuu nebigu galay ee gaaladiina soo socoto waxaynu naqaanaa dagaalkaas ilaahay unbaa isku soo beegay laakiin saxaabadu kumay talagelin iyo nebigu inay dagaal galaan waxay moodayeen inay
nimankii xoolahoodii qaatay safar ay leeyihiin inay iyaguna soo qabtaan unbay ku tala jireen laakiin safarkiina waa baxsaday qurayshoo 1,000 nin oo fardahoodii iyo awrtoodaba wadataana dagaalkii bay yimaadeen waa maalintuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu baahi badnaa rag inuu helo waa kii ilaahay baryayay lahaa ilaahayow intan haddii la halaago maanta dunida dib lagugu caabudi maayo weedhihii nebi maxamed lahaa bay ka mid tahay yacni waa meel uu 300 oo nin iyo kusuur wato qolada kalena 1,000 ayiin ku 3 laabmaan waa meel iyagu aanay farda iyo awr iyo wixii loo baahnaa ee lagu dagaalgelayay aanay wadanin nimankanina hubkoodii iyo gaashaamadoodii iyo fardahoodiiba ay wataan idan waa mowqif xarij ah mowqif aad u adag laba saxaabo soo hijrooday oo aan dagaalka iyo warkanba ka warhaynin ayaa meeshii ku soo beegmay waa xudayfa ibnu lyamaan iyo aabihii xudayfa iyo aabihii beder kamay qayb gelin sababtay uga qayb geli waayeenna waa tan iyagoo soo safray bay yimaadeen gaaladaa qabatay waxaa la yidhi xagaa ku socotaan waxay dhaheen madiina aduu markii la wada hadlay waxaa la yidhi maye maxamed baa ku socotaan ciidanka halkan jooga war ciidan kuma soconna anagu madiinaan ku soconnaa waxay dhaheen ballan noo qaada haddaanu idin sii daynay inaydan ciidanka ku biiraynin heshiiskaana la gala heshiiskii bay galeen ciidankaa ku biiri mayna anagu madiina ayaanu qabanaynaa heshiiskaasaa lagu soo daayey dabeetana nebigii bay u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed oo ciidan u baahan bay la joogaan waa muslimiin gaala la ishayaa waxay dhahaan ilaahay rasuulkiisiiyo dee nimankii waana qabteen heshiis baanaanu la gallay heshiiskiina saasuu sheegayaa maxaanu samaynaa wuxuu nebigu ku yidhi xadiiskii saxiixu muslim ku yaalay nafii lahum cahdahum ballankoodaan u oofinayaa ilaahayna waa u tala saaranayaa iska taga buu yidhi labadii saxaabi heshiiskay soo galeen sidoodaan ugu fulinayaa buu yidhi nebi maxamed baa ballanka buriya layga maqli maaye madiinadiina iska qabta baa la yidhi ilaahayna waan u tala saaranaya haddii mawaaqifta sidaa u adag uu nebi maxamed ilaaliya calayhi salaatu wasalaam mawaaqiftaa halista ah heshiisuu isagu galay iyo mid ay saxaaba soo gashayba miduu isagu galay iyo mid ay saxaaba soo gashayba mawaaqif dagaal oo adag oo uu rag u baahan yahay haddii uu fuliyey waxa ka sokeeya maxaad u malaynaysaa markaa contract baa mushtare iyo haweeney la guursaday iyo cuhuudda uu galo qofka muslimka ahi waa sidaa uu nebigu u sheegay laa diina lah diintu waa dhaqan iyo akhlaaq dhaqan iyo akhlaaq ma wato kaasi liman laa cahda lahu inuu nebi maxamed yidhaahdo qofka aan ballan lahayn qofka aan heshiis fulin qofka muslimkii markaa ama mid wacdiya ha noqdo uu yaboohay oo mustaqbalka ku saabsan ama mid uu saxeexay ha noqdo ama mid uu afka ka galay ha noqdo war heshiis ballan haddaad gasho oofi ballanka oofintiisu bay culammadu yidhaahdaan qadaaya alkhalaynta ugu badan leh waa iskaga mid inaad gaal la gashay iyo inaad muslim la gashay iyo inaad munaafiq la gashay waa iskaga mid waa gaalo oo waynu iska khiyaamaynaynaa war muslimku wax ma khiyaameeyo qadrigana kuma dhaco qadrigu waa ballan furow intaad dadka wax la gashay inaad xagga kale ka weydaanato bale axaadiistu waa kuwa tilmaamaya aakhiro kaasi isagoo liwaasita culammadu waxay dhahaa dabadaa loo sudhaa liwaagu dee waa calaamad bandiirad isagoo dabada ku sitoo imanaya ay ugu qoran tahay liwaaulqadr waa kii ballan furowga lahaa kii dadka khiyaameeyey aakhiro oo khalqigii ilaah oo dhami taagan yihiin baad imanaysaa adigoo xagga dambe ku wata calaamad bandiiradi kaa taagan tahay sheegaysa inaad tahay qofkii ballanka buriyey haddaba qur-aanka in badan baa ku aragteen aladiina yanquduuna cahd allah awfuu bicahdi illaah in badan baa ku aragtay aladiina yasiluuna maa amara allahu bihi an yuusal in badan baa ku aragteen iyadoo ilaahay tilmaamayo waid akhadnaa miihaaqakum aw miihaaqahu
in badan baa waxaas oo dhami waa ballamo ilaahay ballankaad la gashay fuli kow waxaad rabbi ballan la gashay kad laa ilaaha ila allah tidhi waxa weeyaan ilaahu keligaa baan ku caabudaya ballankaasaan galay maxamedun rasuulullah markaad tidhi waxa weeyaan dariiqii nebi maxamed baan kugu caabudaya jidka la jeexan maayo fuli ballankaa wixii aad ballan muslimka la gashay fuli mid guur ha noqdo mid baac mushtar ha noqdo mid madaxnimo ha noqdo midkuu doonaya ha noqdo waxaad ballan gasho fuli waana diin maadaama waqtigu uu kooban yahay waxun baan rabuun in la fahmo mowduuca ah ballanku inaanu gaal iyo muslim kale lahaynee haddaad ballan gashay inaad fuliso iyo inuu diinta ka mid yahay iyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sidaa uu u weyneeyey inuu khudbad kasta u akhrinayo inta badan uu akhriyi jiray sida xadiidkaasi tilmaamayo qur-aankana aayaadka haddaan isnaana ururiya waa bilmia waa ka badan yihin almithaaqu waalcahdu waalwacdu iyo waalcaqdu wixii ku saabsan ee qur-aanka ku soo arooray waa aayaad aad u tiro badan leh waa waxaa lagu kala soocayo gaal iyo muslim iyo munaafiq xadiidkii sheekhu akhrinaya waa maqlayseen saddex qofkii laga helay inuu munaafiq yahay calaamaat almunaafiqiin inay tahay ama afar qofkii laga helaa inuu yahay munaafiq khaalis ah waxaa ka mid ahaa cahdiga in la fuliyo hadduu qofku ballanka iyo cahdiga buriyo inaanu ahayn islaamnimadii saxa ahaayee xagga nifaaq camaliga inuu sii socdo idan nafyu liimaan meesha yaallaa culammadu waxay yidhahdaan ama nafyu diinkani waa nafyu lkamaal bay culammadu u badan yihiin ama ay ku tilmaamaan laakiin dee hadduu noqdo inaad laa ilaaha illa llah buriso wuxuu noqonayaa nafyuliimaankii rasmiga ahaa hadduu noqdo cahdigii aad ilaahay la lahayd inaad buriso ama nebi maxamed la lahayd si dhaba inaad u buriso meel khatar u gaadhaya idan cuhuuddu meel sare oo nafyuliimaanka gaadhi kartana way yeelan kartaa iyo diinba in laga anfiyo meelo ka hooseeyana way leedahay laakiin naqdigu marnaba islaamnimo kuma qumana waxaan ku soo koobayaa markaa ilaahay intaad ka cabsato iska hubi waxa aad gelayso wixii aad ballan gelayso ama cahdi gelayso mid shaqo ha ahaado mid guur ha ahaado mid dowladnimo ha ahaado mid madaxaad la gelaysa ha ahaado mid aad gaal la gelaysa ha ahaado wuxuu doonabaa noqdo iska hubi haddaad se gasho oo saxeexdo ha burinin cahdiga ha burinin haddaad iqaalo dalabto isagu uu kaa qalleeyo waa meel haddii kale mulsim baad ku tahy beecii maxaa la tilmaamayay waxaa la ammaanaya qofka muslimka ee dadka ka qalleeya laakiin hadduu kontraagu dhaco waad ku jirtaa sina ma burug hertid marka ilaahay aan ka cabsanno diinteenna ilaashanno sala allahuma calaa muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin